والله waa fursad oo ebidkeeda na soo marin fursadda maanta ah haysano maanta siday dadka dhammaan ogyihiin waa maalin barwaaqaysan marnana lagama yaabo saadiq john in wax walba oo dhaco marnana ay ka go-eynin shahaadadiisa marnana ay ka tegaynin wuxuu go-aankiisa ahaa go-aankiisu waxa waaye inay dhacdo doorasho loo wada dhan yahay 2 sano oo ku darashana qof ogol oo muqdisho ku nool ma jirto oona ahayn tiim farmaajo waxay jecel yihiin qallaaso iyo dhab iyo dhib inuu dalka ka dhaco dadka kala baxaan annagana waxaan jecelnaha inaan dadka isku keenno oo aan ka talino aayaha iyo sumcadda magaca Soomaaliyeed hadda sida la og yahay horta ma rajaynayo inuu dhiig islaameed marna baxo idoo tahay bil Ramadaan laakiin waxaa la dhahaa ninkii dalkaaga duulaan ku ah dadkaaga duulaan ku ah maalkaaga duulaan ku ah naftaada duulaan ku ah waa inaad iska difaacdaa tiim farmaajo intaas ayay isla qaateen mar walbana waxaa la dhoorayay oo la martigelinayay waxay ahayd in aan ninkaaniiti meel loo raaca la helo iyo tiimkiisa maantana hadday hal xabad yara ka dhacdo hadday ka dhacdo meesha loo qaadayo waa la ogyahay iyo wuxuu galabsaday iyo wuxuu dhigtay waxa keliya oo aan u mahadnaqayno waxaa waaye go-aanka ay gaareen 5 qaarad ee martida nagu ah dalkeena oo nala joogto shisheeye shal haddaan u carari jirnay maanta nala joogaan inaan meel kale ka doono ma rabno in ay waddan kale noo fadhiistaan ayna dhahaan kaalaya waa ninuskiin keenaya Soomaaliya ma jirto muqdisho ayay nagula arkayaan qofkii qaldan ay nagula qabanayaan qofkii qaldan ay nagu raacayaan qofkii saxsan war iyo dhammaadkiisa waxa keliya ee loo tartamayo ee noloshaaniti oo aan isweydiiska lahayn waxay tahay in hadda iyo qoloqolo u dirir in dib noola celinayn aan hore u soconayno ninkaana qabiil laguma dilaayo fi tiim farmaajo sababtay taa waa rag is aruursaday oo tuuga ah oo dalka iyo danta iyo diintaba aan u naxaynin dunida inay naga harsiiyaan rabaan been yaan yala sheegin wax walba waa wax diyaarsanaay ayay rabaan inay fuliyaan waa riwaayad mar hore soo dhigmatay riwaayad mar hore lasoo daawaday riwaayad mar hore oo suuq ka baxday ayay rabaan inay dib ugu soo celiyaan annagana kama iibsanayn riwaayadaas dadweynaha Soomaalida waxaa u sheegayaa nabad ku afura intaasna waxay iga tahay dardaaran nacala shaydaan ku yaala